saalonkaa joogaan sabayna customer ay joogaan ee imaan dirid ii joogsata ii salaam qoyska aabe cali cumar waxa ay weli ku jiraan maalmahooda murugada ee geerida gabadhooda Farxiya Cali Cumar xubno ka mid ah qoyska marxuumad Farxiya iyo dariska xaafadda ayaa ku sugan halkan oo ah afaafka hore ee guriga tacsida haddaba sidee ay ahayd nolosha Farxiya nolosheeda Farxiya waxay ahayd gabar arday ah Sacuudi ku dhalatay oo jaamacad ka soo baxday inta markay timidna nolosheeda halkan aan ka bilawnay oo meel bay furatay naag gabar waxay ahayd oo aad u dhaqdhaqaaq badan gabar waxay ahayd xarakadeeda ziyaada ah mabaanti gabar istaagaysa meeheen waxay ahayd meel alla meel kasto ay tagto waxay ogtahay in nolosheeda ay ka soo saaran karto gabadhaas waxay ahayd gabadhii anaga aan ku tiirsanayno tiirkaynay ahayd haddii guriga oo 4 tiir uu leeyahay iidu waxaynu ahayd 2 tiir iyo bar 3 tiir taa waa dhigi karnaa in ay celinaysay Axmed Cali Cumar waa wiilka ka yar marxuumad Farxiya Cali Cumar waxa uu ahaa qofkii ugu dhawaa isla markaana saaxiib gaar ah la ahaa marxuumad Farxiya waxa uu xusuus u haystaa telefoonkan oo markii ugu dambeysay ay siisay walaashiis marxuumad Farxiya maanta waxa uu dareemayaa in uu ka baxay qoyskooda tiir muhiim u ahaa u faraxsaneen marka Fahadka mobile uu soo dhiibino meeshaas marka Axmed waa iga kharisay Axmed Kaali waxa ku sheegay dheede waa u tagay Axmed walaalkii oo mobilka hore ay dheede gacanta iga saartay marka xasuuskaas hadda haya mobilka waa iyala wali xataa sawiraheeda ku jira kuma santay walaashay alxamdulillah marka waxyaal badan jira laakiin maskax aboo ka dheeb mashaqadii dhacday waxa ku baxay lamaanahan oo aqalgalkooda uu jiray 9 cisho oo kaliya marxuum Fahad Abdiraxmaan Daahir oo ahaa saygii marxuumad Farxiya Cali Cumar waxa uu muddo dheer uu ku noolaa dalka Holland Rose Beauty Salon waa kofeerkii ay ku lahayd adduunyada isla markaana ay ka soo saari jirtay nolosha qoyskeeda ma sha Allah Samiira Cali Cumar waa gabadhii ka weyneed marxuumad Farxiya Cali Cumar waxa ay nasiib u yeelatay in ay noqoto qofkii ugu dambeeyay qoyskeeda oo ay la kulanto marxuumad Farxiya Cali Cumar ka hor intaysan ajasho iman أحدية ماد العزمة تضوذك بحثي ما أنت سديدها برتي عزمتي قرفوا سوا باشاشي يعني واحد ليس سوا باشاشي وفرحة أهد فرحة لسوكو وكرمها إيدي لنكاجو على عزمي ما شاء الله سالون كاجو يعني سبايني كستمر أي جوغي يا إيمان ديريد إي جوغ ستي سلام سالون كي أمادي سالون كي سلامتي last time أنا أركايس هاي فريحة يوماتي سالون كي إيشو مسيس هاي ركاسة يودن أنا فرحي الله ونخرجت فرحية على عمر طبعا هالك إيمي كان كسوغان هاي طبعا كرسيغان وكرسيغي أي جارك أول هايد أو أي فريسن جرتي فرحية لكن ساكا كرسيغ وأمرين هاي أو قفنا مفردية فرحية صدق الوحي هايد قف حافظ القرآن أو قرآن كأياد وحفظي وحالكن يالا كتابكي أي مرول باي أقسن جرتي فرحية أو مركا أي شقادة أي تمادو inta ay nasiinada ku jirto oo ay salaada tukato mar walba waxay ahayd qof Ilaahay ku xiran oo kitaabkan ay akhrisan jirtay Cabdirashiid Maxamuud Maxamed Muqdisho Cable TV magaalada Muqdisho